asalaamu calaykum. haddii aad tahay qof ganacsada ah ama qof milyaneera ama shirkad weyn haysta oo wadankii ama meelo kale adduunka ku nool degan, waxaa fursad ka samayn kartaa ama business ka samayn kartaa waxaa la dhaho bitcoin mining. dadka bitcoin la socda way ogyihiin bitcoin waxaa lagu soo saara qaab mining la dhaho. kombiyuutaro waaweyn oo powerful ah ayaa koronto lagu xirayaa, korontadaas oo aad u badan bay waxay marka dhalinayaan maalintii inta machine haysatid bay ku xiran tahay, marka waxay dhalinayaan waxay ku soo saarayaan bitcoin. hadda waxaan idin tusayaa waa mashiinada bitcoin mining ku sameeya, way kala qaalisan yihiin, way kala powerful badan yihiin. hadda kan oo kaleeto 3,000 haddaan ku dhufto powerkiisa waa wax la dhaho saa u jeedaan waa 191 tera t waa macnaheeda loo soo gaabiyey waa terabyte waa hash wax la yiraahdo power ay ku shaqeyso. marka wax technicalka adiga haddaad ku cusub tahay oo ku wareeraysaa kulama tali inaad hadda dhiib usii gashay, laakiin markaad rabtid inaad businesskan bilowdid waxaan nii sheegaya hadda mashiinkan oo kaleeto ilaa 3,600 buu hadda maraya. waa markuu cusub iyo brand new. companigan waa companiga ugu weyn oo soo saara bitcoin mining mashiinadeeda soo saara, laakiin iyadoo second hand heli kartaa. marka sidee lacag ugu samayn kartaa haddaa wadankii joogtid? waa ognahay korontada wadankii aad bay qooli u tahay, kilowatt hourkeedu waaba ka badan yihiin wadamada westiga oo kaleeto. marka adiga haddaad tahay qof individual ama shakhsi gooni, haddaad tiraa mashiinkan ma soo gadanaya guriga korontada ku xiranaya, waxba faa'iida kama helaysid, minus badan ba khasaara ba gelaysaa. laakiin qof hadda meel warehouse weyn haysta ama company weyn haysta oo millionaire oo kaleeto ah ama lacag badan ama shirkad haddaad tihiin isku tagato kaleeto, waxaa soo gadanaysaa mashiinkan oo kaleeto 100 xabo haddaad soo gadataan. tusaale ahaan 100ka xabo maalintii waxaa faa'iido ka samayn kartaan bitcoin idin soo baxaysa. hadda website-kan wuxuu calculate gareeyaa inta maalintii faa'iido heli kartaa. tusaale ahaan $6.88 baa helaysaa maalintii halkii mashiin. marka haddaa 100 xabo oo 30 maalmood ku dhuftay bishii oo kaleeto ilaa $20,000 ayay soo saarayaan 100kan mashiin. laakiin korontada kugu baxaysana ogow, korontadaas aad iyo aad ayay u badan tahay. waa inaad haysatid. aniga waxaan kula diranayaa hadda kan waxaan geliyaa 4 cent oo kaleeto, koronto 4 cent kilowatt hourkeedu yahay iyo wixii ka yar haddaa haysatid ama heli kartid. tusaale ahaan waxaad degantahay meel qoraxdu solar badan baa haysataa oo aadan waxba inta badan aadan waxba ku qabsan, korontadiis awooddaas solar leh haddaa haysatid, ama wind turbine waxaa loo dabaysha laga sameeyo kaleeto, ama motor weyn haysto oo koronto badan oo kaa khasaarto kaleeto, mashiinadan kale soo gadanaysaa, warehouse weyn baa u dhisanaysaa, waxaa ka samayn kartaa lacag fiican baa ka samayn kartaa. lacagta kaa gasho mashiin kaa gashay muddo kooban bay kugu soo noqonaysaa. marka bitcoin hadda waa maanta intay marayso, hadday qiimaheedu kasii badan dabcan lacagta kasii badanaysaa, laakiin hash powerka wax la yiraahdo waa sii badanaya. marka Soomaalida lacagta haysata oo ganacsadayaasha ah bay ku fiican tahay ideadan. waa idea inaad baartaan. kan website-ka hadda idin tusayo wuxuu iyagoo second hand ugaday. hadda kanoo kaleeto inkastoo powerkiisu yar yahay 820 halkii mashiin, kuwa kasii yar 520, laakiin ogow haddii uu yar yahay macnaha qiimahooda hadda kanoo kaleeto 70 th waana terawatt-ka waa 70 terahash baan ka wadaa iyo 60 hadda kanoo kaleeto kasii yar yahay kan 120, laakiin waa la iibsaday waana second hand way kuwaan kaleeto hadda $1,000 way kan waana terawatt-kiisuna waa 76. marka waxaa ku xiran tahay powerkan haysatid, the more power haysatid oo terawatt hashka waxaa helaysa awood badan bitcoin kaga qayb qaadatay. dad badan ayaa bitcoin hadda Mareykanka aad ugu badan tahay. warshado ama shirkado waaweyn oo Mareykanka ah hadda millions lacag ku bixiyay inay warehouse waaweyn oo 100 mitir isu jira way sameeyaan oo 20 mitir cirka macnaha dheerkooduna jiro oo kaliya mashiinadan ay ka buuxaan. marka haddii aad haysatid saan hore u sheegay koronto raqiis ah oo waajiba iyo lacag capital markoo investment fiican haddaa haysatid, mashiinkan oo second hand oo fiican baa helaysaa. laakiin ogow kuwaan kaleeto haddaad tiraahdo soo gadanaya 250 kaleeto ah, koronto badan buu cunaya. hadda kuwa cusub oo dambe oo markii dhowtay idin tusayay korontada cunayaan ayaa ka yar kuwa hore. bitcoin waxaa lagu qiyaasaa korontada mashiinadan ku baxay kaleeto. bitcoin miningka korontada ku baxda wadamo badan bay ka badan tahay. hadda wadanka Norway oo kaleeto korontada isticmaalo dhan iyo kan bitcoin isticmaasho kan bitcoin baa badan baa la yiraahdaa. marka haddaa ganacsado tahay, haddii aad tahay qof lacag haysta millionaire, waa idea shaqaynaysa, inaad baartaan wixii caawinaad ama haddaa rabtaan igu soo dir email hoosteeda information ama comment hoosta ka dhiibta. aad ayaa u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.